السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله waxaan rabay maanta inaan inooga sheekeeyo asabaar amba olavera amba dacarta insha allah. waka maasha allah markay akhtarka tahay aad buu fiican yahay. akhtarka aadka hadduu madow leeyahay ma wanaagsano isegaabad xanuun kasii qaas, laakiin markuu akhtarka yahay waa dawo caafimaad qabaa. waxa weyn midda kaleete rasuulku waa ammaanay calayhi salaatu wasalaam laba shay faa'iido badan ayay leeyihiin buu lahaa, asafaa iyo asabar. marka asabar waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa asabaar. marka labadaasiba faa'iido ayay leedahay buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. midna waxa weeyaan xabarashaad waan kasoo sheekeeyey, iyo sabaarka waana idiin sheegay. xabarashaadkan xadiiska ka sheegay rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam. marka maanta waxaan rabnaa maalintii horaan ka sheekeeyey xabarashaadka iyo asabarka oo waxa weeyaan asabaara. marka insha allah dacartaasi faa'iido badan ayay leedahay. haddaan in yar ka sheekeeyo faa'iidadiisa, waxa weeyaan maskaxda amba dimaaqa waxa weeyaan hawo ayay siisaa. haddii ay biyo ku jiraan way ka nadiifisaa. jirkaaga hadduu biyo ku jiro way ka nadiifinaysaa. faa'iidooyin badan ayuu leeyahay asabaarku. waxa weeyaan maskaxdaada wayna clean garaynaysaa amba way nadiifinaysaa. haddii ay laabta ku xanuunayso waxa weeyaan uu naqasku kugu dhagayo oo kale aad buu faa'iido ugu leeyahay. waa dawo ayuu yahay. waxaa kaloo faa'iido u yahay haddii caloosha ku xanuunayso almacida caloosha haddii ku xanuunayso faa'iido u leeyahay. haddii ay ku xanuunayso beeryaridu, haddii ay ku xanuunayso spleen ayaa ingiriishka la yidhaha, beeryarada yar adaxaal ayaa carabiga la yidhaha. haddii ay ku xanuunayso faa'iido ayuu leeyahay. haddii ay keliyuhu ku xanuunayaan garaac kugu hayaan faa'iido u leeyahay. caloosha naqas inuu kasoo saaro faa'iido u leedahay. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay haddii amaad aragtay maxaa la yidhahdaa waxaan laabta fadhiisanayo oo kale faa'iido isnoo leh. bawaasiirta oo kale insha allah waan ka sheekeyn doonaa, ayaanba in baan kasoo sheekeyn doonaa. bawaasiirta oo kale oo dadka kasoo baxda faa'iido u leeyahay. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay in saliidiisa amba madaxiisa madaxa la mariyo amba lagu maydho. waxa ay faa'iido u leedahay injirta timaha gasha ayay faa'iido u leedahay oo injirta ayay ka kaxaynaysaa. waxaa kaloo faa'iido u leedahay timaha ayay soo saartaa. waxa meelaha maxaa la yidhahdaa waxyaalaha cambaarta oo kale kaa gasho ayuu timaha faa'iido u leeyahay. marka maasha allah rasuulkuna uu ammaanay calayhi salaatu wasalaam hala caba buuri cabitaankiisa insha allah. waxaan rabaa cabitaankiisa inaan ka sameeyo maanta, amba maxaa la yidhahdaa saliidiisa inaan ku horeeyo oo zayta zabaar inaan sameeyo. maxaa la oo zayta zabaar ayaan rabaa inaan sameeyo amba saliida dacarta insha allah. waa kan marka insha allah waxa weeyaan hareerihiisa in la iska gooyo weeyaan. waa qodaxyo weeyaan, qodaxda in la iska gooyo. marka waan googoynayaa, ayaanba in yar baan iska goynaynaa. ka madow faa'iido malaha la yidhi, marka qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan. intaa kalena waa xun tahay, waad iska goynaysaa intaa cad ee madowga yar leh. laakiin marka uu madow noqdo faa'iido ma laha in la cunin amba in la cabin amba timaha in la iska marin. waxa weeye isaga ayaa dhibaato kuu keenaya, timaha tintaadu xumaynaya. marka insha allah waa markuu madoobaado waxa weeyaan waa kaasoo kale saasoo kale markuu soo madoobaanayo ilaa akhtarka ayuu baabiinayaa. saasuu soo soconaya markaa uu baaba'aya madowbuu noqonaya. marka insha allah waxaan rabaa inaan hareeraha ka gooyo. marka insha allah waan isku soo noqonaynaa asxaabey. waa kaasi intaan waan iska goynaynaa insha allah. kale faa'iido ma laha. waa kaasi insha allah waxaan rabaa inaan ka gooyo goorta hore. waxaa lafaha waxa weeyaan baashaas inaan ka gooyo insha allah. haddii la yidhaahdo shocked amba qodax baa la yidhahdaa soomaaligana, carabigana shocked ayaa la yidhahdaa. markaasi insha allah bismi illahi raxmaan raxiim. marka asxaabay waa kaasi ka goynayaa. marka asxaabay waa kaasi waan ka gooyay.
uskagii weeyaan. hareerta أصحابي وانك كوي حوسك كها مركا إن شاء الله وكاسي وان نير نظيفين يا إن شاء الله أصحابي وكاسي ما شاء الله إن وان كوي ما شاء الله ودركتين ساسان يريستي وحاربا إن زيت كدكتان با أويل أن كدكتان بصليد أن كدكتو إن شاء الله وحان دونيا إن أن صليد داسي lagaga faa'iideysto oo timaha la mariyo. Timaha saaraysaa, timaha way qurxinaysaa, xabad bay meel ugu tuuraysaa. maasha Allah qurux bay ka dhigaysaa saliideedu. midda kale waxaan dhalaal ay timaha u yeelaysaa, wayna bixinaysaa, tinta way soo saaraysaa, sida xariirta oo kale ka dhigaysaa. marka insha Allah caruurtana loo mariyo, dadka waaweyn ha marsadaan, faa'iido badan ayay leedahay. maadaama Nabi Maxamedna inoo ammaanay calayhi salaatu wasalaam, aan ka faa'iideysano. maanta waxaan rabaa in aan ka sameeyo saliid amba zayt, inaan ka sameeyo oo on maxaa la yiraahdaa timaha la marsado ayaan rabaa in aan ka sameysano. marka insha Allah waatan intii kale waan dhigayaa insha Allah ayaanba inba inooga sameyn waa kaasi marka laga faa'iideysto insha Allah. marka maanta waxaan rabaa in aan ridqo oon ka dhigo saliidaan ka dhigo, marka ha lagu soo dhawaado insha Allah. aniga asxaabay waa jeel oo kale, jeel sidaas isku jiidanaya maasha Allah, jiri wuu noqonayaa maasha Allah. markaan waa ridqaynaa haddii Ilaahay raado oo inaga arkaya. dhareer buu leeyahay maasha Allah, faa'iido badan buu leeyahay. saas isku jiidanaya insha Allah. rabaa insha Allah inaan ridqo, markaa kusoo dhawaada insha Allah. asxaabay wakaasi biir baan ku kalin garanayaa, baan ku nadiifinayaa insha Allah. ma in ku ridqayo laakiin biyahaasaan ku yara kalin garayn, marka insha Allah waa idin tusi doonaa. asxaabay wakaasi insha Allah waxaan rabaa inaan saliid amba oil inooga sameeyo zayt. wakaasi waan ridqay wadarkaseen markaan googooyo inkan waan ridqay. markaan ridqalka waan ku shubay waan arki doonaa dabka keeranaa qosisa insha Allah wata faxaya. marka insha Allah waxaan rabaa inaan oil inooga soo saaro, waad arki doontiin insha Allah. kusoo dhawaada channelkana insha Allah, subscribe-kayga loogina insha Allah. faa'iido badan buu leeyahay, timaha waxa way aad buu qurxinayaa. waa inaga arkaya si isku jiidanayo maasha Allah, waa inaga arkaya si isku jiidanayo wadarkaseen sida isku wada jiidanayo maasha Allah. marka waxa weeyaan faa'iido u leeyahay timaha, xanuuno badan ayuu ka daweeyaa timaha. waxa abaarta wax wala timaha ka soo baxa waa u dawo. marka insha Allah hala marsado. waxa kale oo saliidiisu amba asay ku dhisadaad marsid waxa weeyaan injirta ayuu ka soo saarayaa timaha ku jirta. marka insha Allah aad buu faa'iido badan leeyahay. marka insha Allah waxaan rabaa insha Allah komadkiina quruxda badanana in aad insha Allah aad in dhiirigelintaad igu sameynaysin insha Allah, in la isoo sameeyaan rabaa insha Allah. waa walaashiin insha Allah. komadka aad baan ugu farxaa dhiirigelintiina insha Allah, aad baan ugu mahadsantihiin. kusoo dhawaada channelkana, waxyaalo badan oo faa'iidana way noo soo wadaa insha Allah. kusoo dhawaada. marka waxaan rabaa maanta inaan zayt asabaar inaan sameeyo insha Allah. saas la soconaysiin insha Allah. asxaabay wakaasi insha Allah walaaqaya waxaan insha Allah dabka ayay faxaya. saan ka sugaynaa inuu saliida keeno insha Allah. dabka sugaynaa natiijadiisaan sugaynaa insha Allah. asxaabay wakaasi insha Allah waan wadaa. waxaan rabaa in aan ku yara daro olive oil insha Allah. sina ogtahay oo saliid inoogu noqdo olive oilka ayaan rabaa inaan yar ku daro, iyo saliido kale oo maasha Allah aad u kulma waan ku dari doonaa insha Allah. wakaasi
aniga arkay yar saliid weeyaan laakiin waxaan ku daraa saliida kale insha allah. aad baan idin salaamayaa in aad ka faa'iidaysatiin isagoo sidaasna waa marsan kartiin maasha allah quruxu ka dhigaa timaha kaas insha allah. rabaa waxaan ku darsaday ooyalo aad timaha ugu fiican saliida ooyalkii fajalkii amba rokadka ahaa ayaan ku daray zaytara waxaa fajalkii iyo maxaa ahayd raadishkii fajalka waa raadishkii weeyaan zayt ayaan ku daray udgoon waryaal saliidaad baan ku darayaa iyo saliido kale oo waxaan kaloon ku daray raadish baan ku daray waxaan kaloon ku daray aljarjeer baan ku daray saliido aan samaystay baan iyagana insha allah waan ku dhex darsaday insha allah si ay udgoon uga dhigaan waa dadkasiin insha allah isagana waa saliidyara baa ka baxday marka insha allah saliido kale waan ku dhex darsaday si udgoon uga noqdo marka wakaas hadaa doontii sidaa iyadoo ah timaha baa marin kartaa ciyaalka amba adig weyn baa marsan kara maasha allah. timaha waxaan kula xariiqay ka dhigaysaa timahaada qurux ayay ka dhigaysaa saa ku marsatid aad bay faa'iido u leedahay keligiisa. marka waxaan arabaa laakiin aniga insha allah in aan saliidda ka shubo aan meel ka shubto saliidda timaha lagu qabto oo waxa weeyaan timaha lagaga daadiyo injirka iyo cadcadaanka iyo beerka injirka gaalisoo dhan lagaga sameeyo oo laga hagaajiyo. marka insha allah way kusoo dhawaysa ooyalkii iyo waxaan isku wargarsada kale fajalka rokadka insha allah. marka asxaabay kusoo dhawaada oo waxa weeyaan ka faa'iidaysta oo lageeda aad bay fiican tahay wejiga la marsan karaa waxaa kaloo marsan kartaa timaha marsan kartaa. marka insha allah laga faa'iidaysto insha allah waan ka meedi doonaa insha allah laga faa'iidaysto saliidahaasaan isku dardaray timaha waxaan fiirista xariirka ka dhigayaa insha allah la isticmaalo aad bay qurxinaysaa timaha aad bay hagaajinaysaa iyo maalinteeda karkadayga waxaan fiiri timaha waxaan fiiri qofba meel buu dhigayaa maasha allah qurux buu ka dhigayaa timaha. marka insha allah aan ka faa'iidaysano wixii timaheena qurxinaya waa laga shaqeeya timaha marka siay timaha u baxaan oo u dheeraadaan hataa tima adag tahayna waaba kasii fiicantao timaha kuu saaraysaa way kuu jilcinaysaa. marka insha allah laga faa'iidaysto fursadaha qaaliga insha allah markuu qaboobo waad ka marsan kartaa timaha maasha allah qurux buu ka dhigayaa timaha haddii markuu qaboobo jigeer waad ka marsan kartaa maasha allah. saliidigaa ku jirta maasha allah qurux buu ka dhigaa waa olive oil waxa ayaa ku jirta. midda kaleeto waxa weeyaan dacarti weeyaan waxa afkarkii greenka waa dacarti. marka insha allah qofka markuu qaaduu qaboojiyo wejiga iska marsan kara intuu meel dhigto maasha allah quruxda kaaga dhigaysaa wejigana. timahana waa marin kartaa timaha ku qurxinaysaa sida xariiqoo kale wayna kala saarsaaraysaa wayna qurxinaysaa. marka insha allah laga faa'iidaysto timaha la marsado wejiga la marsado sidii qabow la marsado markii qaboobo insha allah saliidaas insha allah waan ku shubi doonaa. waan idin salaamayaa insha allah kusoo noqo dambe insha allah iyo cajiladeeda silsilo kaladaasina insha allah ida qamarka quruxda badan leh. asxaabay wakaasi halkaasaan ku shubay waliba yar kuushahay insha allah waynaga arkaya waan ka daadajin doonaa insha allah baasha wataa saliidii wataasi insha allah lagu soo dhawaado wataa saliidii maasha allah ciyaalka madaxa loo mariyo ha lagu qurxiyo timaha insha allah aad baa idiin salaamayaana waa dhammaatay wataa saliidii kusoo dhawaada insha allah komadkiina quruxda badan leh igula soo wadaaga insha allah wataa saliidii timaha la marsado qurux weeyaan insha allah. baasha wataasi saasaan sameynayaa weli aad ugama daadajin weli aad ugamaan sameyn saliida laakiin insha allah nabaygaga dhacdada insha allah waan ka aad baan uga dhameyn doonaa insha allah saliida. marka wakaasi asxaabey aniga arkaya oo aad baan uga daadhicin doonaa saliid badan baa kulli ku jirta waan aad baan uga xafoojin doonaa aad baan uga dhameyn doonaa insha allah. marka hala marsado insha allah saliid faa'iido badan bay leedahay waa inoo sheegay
injirta ayay faa'iido u leedahay timaha wax weeyaan galaya marka insha allah la iskaga nadiifiyo la iskaga hagaajiyo waad ogtiin aloe vera waxay leedahay shaamboo bay leedahay waxay leedahay saliid bay leedahay wax kasta ayay leedahay ilkaha waa lagu cadaydaa maasha allah marka ha laga faa'iidaysto aloe verada insha allah faa'iidaday leedahay ha laga faa'iidaysto insha allah aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin wakaasi aad baan uga samayn doonaa laakiin insha allah wataa saliidda insha allah wakaade lagu soo dhawaado asxaabey insha allah hala tareegareeyo ciyaalka injirta waxa weeyaan aan laga hagaajiyo waxa weeyaan fursad qaaliya weeyaan inta chemical la marin lahaa waa wax dabiiciya insha allah saliidda caag yar baan ku shuban doonaa insha allah markay qabowdo caag baan ku shubayaa dee waa la marsani si ay timaha inoogu saarto ay timaha u dheereyso timaha dheereynaysaa maasha allah dee wakaasi aad baa idiin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh